runtii saaka airportka Muqdisho markaan ka soo dagay dhacda fool xun oo dhacdadii labaad ee aniga muddadii hadda shirkii ka horeeyay oo bishii 7aad lagu galay Belgium markii aan ka soo laabanay igu qabsatay airportka maanta igu qabsatay laakiin way kala duwanaayeen tan iyo tii hore airportka maanta markii aan ka soo dagay maalmahan waxa ay wacayoon iswacaynay xildhibaano fara badan siyaasiyiin fara badan dadka saaxiibada aan nahay oo daba joogay shir jaraa'id oo maal dhawta aan Istanbul ku qabtay waxaad ka hadashay waxyaabo fara badan oo khuseeya siyaasad oo khuseeya dhaqaalaha oo khuseeya bulshada baad ka hadashay meelaha inta wanaagsan Soomaalidu ma aado oo ma fiirso war madaxdeena aanu ducayno oo aynu ducada ku kaalmayno arrin fiican bay cid soo qaadi ma arkaysid waxaad ka hadashay ganacsatada canshuurta xamar laga qaado ee dawladda federaalka ay ka qaado maxaa wada oo loo sameeyaa maxaa amnigooda laga qabtaa checkpointyada ma laga qaadaa ganacsatada dhaqaalahooda kobac ma laga fiiriyaa iyo hoos u dhac baad ka hadashay maxaad uga hadashay waxaan rabaa inaan qodobka kaga jawaabo ganacsatada ana xukuma ganacsatada xamar dukaamada xamar ee canshuurta laga qaada ana xukuma xogayaha guud ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed baan ahay ana shatida siiya ana xukuma waa inaan u hadlo markii ayaga dawladdu ay noo diriba waan oo la hadalaa canshuurta dawladda bixiyo ayaga markii ay cabanayaan dib ay ku jiraan waa inaan nidhaahno dawladda ay ka daaya ganacsadaha markii uu badeeco ka soo rarto dekada bakaara 24 saac ku gaaraya ee checkpointiya iyo loo geysanayo dhac iyo bob waa inaan ka hadalno waa inaan nidhaahno maxaa bedelo loo sameeynaya waxaad ka hadashay baa la yiri oo dawladdu ay ku haysataa maqaamka dadka reer Muqdisho 3 milyan ee Muqdisho degan maxaa ku galiyood ooga hadashay sax weeye arrin siyaasadeed weeye laakiin ka muwaadin ahaan aan ra'yigayga ka hadlay kaliya go'aan ma aha go'aan aan leeyahay ma aha go'aan aan gaari kara ma aha waxaan ka hadlay ra'yigayga inay ila quman tahay dadka reer Muqdisho inay maqaam ay si nidaamka dawliga ee Soomaaliya maanta ay ku talaabsatay inay ay reer Muqdisho maqaamka wax ka helaan reer Muqdisho inuu dalku dagaan rabnaa dalkan waxa federaal loo yiri ee federaalnimada inuu ku dagay oo qolo walba ay qanacdo qolo walbana la yiraahdo dabadeedna marka dambe Soomaali ayadaaba dad yar Afrika ba isu gurguuraysa Soomaali ay hal meel isugu timaado fikirkaas haddadan baan qabaa waan ku qanacsanahay waxaan qabaa inay reer Muqdisho ay helaan matalaad siyaasadeed systemka dawliga ee Soomaaliya haddii la rabo caasimadda Soomaaliya inay degto qodobkaas saasan uga hadlay maalintii hore waan ku qanacsanahay dawladda Soomaaliya dadka reer Muqdisho ee 3 milyan aragti ay qabaan baa jira guuxa dadweynaha anagu waan la soconaa carabtu waxay tiraahdaa al-akhbaaru inda al-kasih dadka ganacsatada baa xog oo dhan haya annagu xogtaanayno reer Muqdisho waxay rabaan dad system siyaasadda sida maamul goboleedyada gobolka Banaadir matala maantaan qabaa baritaan qabaya waa fikir anigu aan qabi karo dawladdu way diidi kartaa reer Banaadir qaar fara badan oo kamid ah diidi kara qodobka kale waxa ay ku saabsaneed runtii oo aan ka hadlay arinta Jubbaland ee 2012 ilaa hadda soo noqonaysa iyo dawladda arrinna waa arrin siyaasadeed arrinna waa arrin bulsho iyo ganacsi aanu waxaan ka hadlay dalku si uu u xasilo oo xasiloon u helo Jubbaland hal laga daayo dawladdu abaabulka siyaasadeed ee ay ku wado reer Jubbaland waxaan qabaa waa dad isbitaal qof jirana oo isbitaal ku jiray oo beri laga tuuray oo soco la yiri uu soconaya qayla waxba ma ka qaadayso buuq waxba kama qaadayo dhagax tuuriyeen waxba kama qaadayso state taagan weeye madaxweynaheeda sharci buu shalay ku yimid berina sharci buu ku tagayaa qodobka aan ka hadlay maalinka horena intaan buha waa in ra'yi ila quma
haddii ay tahay qofku ra'yigiisa male wulidna axraaran annaga aslan wulidna axraaran annaga xoraa nala dhalay ma hadli kartida aamus oo waxaad aaminsan tahay caloosha ku hayso aabbayowgiina dhalay mabayna noo sheegin nalaguma barbaarinin waa inaan hadallo oo ra'yiga aan qabna aan ka hadallo arrinta saaka lagu qabsaday nuxurkeeduna saas oo ah arrimahan aad ka hadashay arrimo kuu yaalla ma aha maxaad oga hadashay arrimahan aan ka hadlay ra'yigayga aan qabay buu ahaa maantana waan qabaa berrina waan qabaa ama muqdisho airportkeeda berritana waan ka degi beridamana waan ka degi dadka qaar fara badan oo ku qasaya shalay baasboor baa lagu qabsaday dawladda ka horeysa baasboorka bixinaysay dawladdii ka horeysay kun jeer baan airport ka degay mayna igu qabsanaynin baasboor la isku qabsanayaa ma jirto baasboorka aniga xogta aan hayo cid haysaa ma jirto shirarka caalamiga ee tagna caruurta la kaxaynaya gabdhiyo wiilal leh ee baasboorka gududan haysta ma tahriib baa loo wadaa wax kale loo wadaa dawladda iyo baadhisteeda aw ilaahay baa garan aniga gudoomiyaha coffee wuxuu ii hayaa imuuna gudoonsiinin laakiin xaflad baan ku samaynayaa buu shahaado sharafeed maxaa yeelay ganacsadaha kaliya ee u dhisay guri immigrationku uu leeyahay oo aan shilina ka rabin ku shaqaysta yidhi baana markay labada ayaan Soomaali fara badan baa isku qaldaysa arintuna taas ma ahayn arinta tan dambe weeye waxaan qabaa reer Jubbaland anoo halkan uga mahad celinaya wasiir Omar oo runtii maanta meel uu noloshii gaadhay ayna arintu ku fiicneed bisawti wasuura waxaan wiilasha qabtay aan ku wada hadlaynay camera laga daawanay oo laga dhageysanay uu dhageystay saan filaya asagana soo bandhigi doona wuuna og yahay maanta uu ku qanacsan yahay wasiirku jihada ka dambaysa aad buu dareensan yahay waxa kale oo rabaa inaan halkan uga mahad celiyo runtii dawladda Jubbaland xildhibaanadeedii halka joogay wasiirku ugu horeeyo Omar senator Fartaag senator Axmed Xaashi walaalkay xidig senatarada kale iyo wasiirada kale senator Bulsho oo dhammaantood aan u kala hadhin arinta ayagana waan u mahad celinayaa hal baan rabaa inaan ku gunaanado dalkan waa federaal iyuna isdhaxmarin cid tidhi ma jirto maamul goboleedyada fikirka anigu maalinka horena waan ka hadlay dawladda si hoose wax wada dhaqda sida Soomaalinimadu ku fiican tahay waa ku ganacsi Soomaaliyaana taasan qabnaa ama lisma dhaxmarayo haddee dawlad goboleedyaduna mayna sheegin dawladda federaalkiina yeenan jidaynin arinta in la yiraahdo lisma dhaxmarayo qolo walba airportka yar ay xukunto ilaan meelo yar baa ninba xukumaay lisma dhaxmarayo yaa la jidayn